جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. أما ضدك نوك كركي سكوكي برا وأهل النار إلى يفري ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى قرآنك wuxuu ku tilmaamayaa isagoo sifaadka dadka alle jecel yahay ee muuminiinta dhabtaa ka warramaya. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحاو كسفين يا أدومها الرحمن ونسبة التشريف إلهي أدومه يسن نسبيي. عباد الرحمن من العبد إني كتمي أو من عابد إني كتمي لبدا كيلغا كينبا واسكمد. أدومها إلهي سبحانه وتعالى الرب عابده الرحمن كلو سفيي لو تيريي waxa sifadooda koowaad ilaahay ku tilmaamay aladiina yamshuuna cala alardi hawna, waa kuwa dhulka socda si degan u socda. qofka mishyadiisu ama socodkiisu wuxuu ka tarjumaa cama fii damiiri. qofka mutawaadici qaab buu u socdaa, qofka isla weyne si buu u socdaa. mishyadu socodku waxay ka tarjuntaa baa la yidhaahdaa qofka iyo dhaqamadiisa ama akhlaaqiyaadkiisa. fii nafsihi dhulka markuu socdo qof isla weyn maaha, yacrif qadara nafsih, kuu yahay buu garanayaa inuu makhluuq min bani aadama nudfa mahiina laga abuuray, ma'aalkiisuna geeri iyo ciiduu noqon doono inuu yahay buu garanayaa. walidaalika laa yatakabar, yacrif nafsah. waa mar labaad yacrif khaaliqah, rabbigii buu garanayaa cadamadiisa iyo weynidiisa, dabeetana waa isu dhuldhigayaa. isudhuldhigaasi wuxuu keenayaa inuu caabudo, u sujuudo. ilaahay markaa wuxuu ku tilmaamayaa makhluuqana kuma kibraan, khaaliqa agtiisana ma kibraan. labada sifo midna ma laha baa ilaahay tilmaamaya subxaanaه wa tacaala. walidaalik baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ammaanayaa aakhiro kuwa liibaananayiin. tilka addaaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada. taasi waa daarta aakhira baa ilaahay leeyay. daarta aakhira waxaa loogu talagalay baa ilaahay leeyay liladiina laa yuriiduuna culuwa fi lard, kuwa aan dhulka korkiisa isku kibrinaynin, isku waaweynaynin, fasaadna rabin baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala. ama dadka dhulka korkiisa ku kibraa waa ahlu naarka. ilaahay wuxuu leeyay walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula. dhulka ha kor soconin baa ilaahay leeyahy adigoo marixa. marixa kani waa kibirsan, waayo dhulkana jeexi maysid baa ilaahay yidhi, buuraana gaadhi maysid. mahma aad isqaadqaaddo iswaaweynaysid, dhulkana waxba yeeli kari maysid baa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala. qof kasta oo isla weyn ama jidhkaa dhismay oo waa isla kibirsanyey, ama waxoogaa aqoon uu barto waa isla kibirsanyey, ama in hantiya adduunuu helo waa isla kibirsanyey, ama waxoogaa waa qurux bato waa isla kibirsanyey. ayan kaanat waxa inuu kibre ku kalifay ha noqotee, waxa rabbi ku tilmaamaya subxaanaه wa tacaala dadka kibirsan waxa ilaahay leeyay dhulka aayar socda, lan takhriqa alard walan tabluga aljibaala tuula. luqmaanna wuxuu lahaa walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur. dadka
markaad la hadlayso haismaroorin baa la yidhi walaa tusacir khadak adigoo iska weynaysiinayo ka sii jeesanaya alla hadlin dhulkana ha soconin baa la yidhi adigoo kibirsan in allaha laa yuxibu kulla mukhtaalin fakhuur wiilkiisa yaraa uu la telinayay wuxuu ku leeyahay sababtaan sidan kuu leeya waa maxay ilaahay ma jecla mukhtaalka iyo fakhuurka almukhtaal waalkhuyalaa inta badan fi lafcaal buu ka dhacaa man jara thawbahu khuyalaa'an yacnii iswaaweynida ficilka ku dhacda inta badan ayaa lagu tilmaamaa qofka sameeya mukhtaal ta aqwaasha ka dhacdee faanka ku saabsana fakhri baa la ydhahaa fakhuur faan ilaahay ma jecla buu yidhi ka iswaaweyneeye faanka badan leh rabbi ma jecla subxaanahu wa tacaala waa sifadow nebi moxamed leeya calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu اljannata man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibar jannada ma galo qofka qalbigiisa in darro leeg dhuuri casa leeg waxa u yar leegoo kibiri uu ku jiro janno ma galo saxaabadii way yaabeenoo waxay idhaahdeen nin baa wuxuu ku yidhi ina arajula yuxibu an yakuuna thawbuhu xasan qofku wuxuu jecel yahay maradiisu inay qurux badan tahay wa nacluhu xasan kabihiisuna qurux badan yihin dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha jamiilun yuxibu اljamaal ilaahay subxaana wa tacaala waa qurux badan yahay jamaalka quruxdana waa jecel yahay kibirka aan sheegayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laba sifo oo tawaaduca cagsigoodiya buu ku sheegay batru lxaq waa xaq oo la diido xaq oo qofku ka santaago waa kibirka ugu weyn idan tawaaduca ugu weyni waa maxay waa xaq oo qofku isu dhuldhigo oo u dulloobo oo u aqbaloo raaco waa aslu tawaaduc halkaasu ka bilaabma ka labaadna buu nebigu yidhi waqamti nnaas dadkoo la yaso oo layska weyneeyo tawaaduca qaybtiisii kalena waxay ahayd markaa dadkoo aan layska weynayna laysu dhuldhigo tawaaducu sidiisuba waa qofka oo aan isla weyni muujinin walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqa oo la diido iyo dadkoo layska weyneeyo kibir ku sifeeyey cagsigiisuna markaa waa maxay waa tawaaduci xaqoo la aqbalo min ayi jihadu doonaha ka yimaado iyo dadkoo aan layska weynaynin ayuha alaxiba markaa tawaaducu wuxuu keensanayaa laba shay ilaahay inaynu u tawaaducno oo isu dhuldhigno oo waxyigiisa aqbalno aynan aaraa iyo afkaar ka horgeynin iyo khalqiga inaynan ku kibrin ee si fiican ula dhaqanno mid yar iyo mid weyn mid wax garanaya mid aan wax garanaynin waxoogaaga insaanku uu helo ee uu kayrkii kaga roonaadana inaanay kibir ku kordhinin yacnii nicmada ilaahay shukuraa laga qaadaa dhaqanka muslimka waa kaa laakiin kibir lagama qaado ilaahay hadduu wax dheeraada adiga ku siiyey aqoon ha noqoto xoola ha noqoto masab ha noqoto waxay doonto ha noqoto waa inaad u fahamtaa inay tahay inaad shukriga badsato amase waa inaad u fahamtaa qadiyadda labaad oo ah in su-aashu adiga aakhire kugu badatay waayo ka xoolaha le iyo kaan xoolaha lahayn maxaa u dhexeeya aakhiradda 500 sannadood bay kala dambeeyaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan kahratu las'ila ardayga haddii hal xaashiyo imtixaana lagu siiyo haddii 20 xaashiyood lagu dhiibo 20 haddaad faraxda ka war yacni ka xaashida la siiyey ka 20ka la siiyey waa as'ila as'ilo badani wax lagu farxa maaha walidaalika inaad tawaaducdo haddaad xoola haysato haddaad aqoon leedahay haddaad magac leedahay haddaad maamuus leedahay haddaad aftahantay wax kasta ahaw khalqiga ilaahay agtoodana mutawaadic ka noqo ilaahay agtiisa iyo kitaabkiisana tawaaduc la kaalay صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين